waxaan sameeyey waxay ahayd inaan sameeyo. Taasina waan ku faanayaa, dadkayguna waa ay ku faanayaan. Waxba igama gelin waxa ay dadka kale leeyihiin. Qaan waxa uu ku dhashay Hindiya inta aysan u kala go'in Pakistan iyo India. Laakiin asagoo 16 jir ayuu u soo guuray Pakistan, wuxuuna wax ka bartay jaamacadda Karachi isagoona bartay physics-ka, gaar ahaan injineeriyadda iyo sida u falgalaan macdanta. Wuxuu waxbarashadiisa inuu dhammaystirto u sii aaday qurbaha, gaar ahaan Belgium-ka, Jarmalka. Ugu dambeynna waxa uu yimid wadanka Holland. Waxbarashadiisa halkaas uga sii wado, waana Holland halka uu wax ka baranayay. Meesha uga suura gashay inuu helo sirta sida loo sameeyo hubka wax kumaada ee nuclear-ka, isagoo u helay galaangal shaybaar weyn oo lagu diyaarin jiray habka ay u falgalaan ama loo bacrimiyo uranium-ta. Halkaas oo ka soo xaday sirta tiknoolajiyadda iyo qaabka loo dhiso falgalka nuclear-ka. 1974 ay wadanka ay ishayaan Hindiya waxa ay tijaabisay hubka nuclear-ka, taasi oo qaan ku dhalisay dareen ah inay qasab tahay inuu wadankiisu helo hub la mid ah midkaasi. Ugu dambeynna wuxuu gacanta ku dhigay sir iyo xog muhiim u ahayd sida loo sameyn karo hubkaasi. Waxa uuna u dhuuntay oo u qaxay wadankiisii isagoona la wadaagay madaxdiisii sareeto. Waxa ay ku qaadatay kaliya muddo 6 sano ah inuu sameeyo hubkaasi, halka sida caadiga ah xilligaas lagu sameyn jiray 20 sano. Sanadii 1986 ayay si rasmi ah Pakistan ugu suura gashay in ay sameysato oo ay tijaabiso hubka nuclear-ka. Waxaan ku faraxsanahay waxaa xilligaas loo aqoonsaday inuu yahay geesi qaran. Qaan arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri, waxaan ku faraxsanahay horumarka iyo awoodda aan gaarsiiyay wadankayga. Wuxuu xusay inuu wadankiisa ka badbaadiyay inay Hindiya ku gumaysato hub nuclear ah, taas beddelkeedana uu u sameeyay awood u dhiganta midii Hindiya ay haysato. Qaan adduunka reer galbeedka waxaa loogu yaqaanaa khaa'in xaday sirtii iyo tiknoolajiyadii reer galbeedka. Waxayna hadda ka hor codsadeen in loo soo gacan geliyo ayagoo ku eedeeyay inuu xogo sir ah u gudbiyay wadamada Liibiya iyo Ciraaq oo uu ka saacidayay inay sameystaan hubka nuclear-ka, laakiin Pakistan taasi waa ay diiday. Ugu dambeyn, Qaan October 2021 ayuu dhintay isagoona sababsaday xanuunka fayraska oo aad uga dilaacay xilligaasi dunida. Waxa uu ahaa nin sharaf iyo karaamo uga tagay wadankiisa iyo geesi